sorry حبيبتي والله aad ugu xumaa kowdhe ilaah ku boogdhayo gabar la dili ma sahlano nin ma gacantiis loo dul qaadan karaa farxaas waa xoogiisoo ii sheegtay yaa ula gaaraa kalxadaaji asoo gaaban lehba kuwu kaduudana feerkuu dhiidhiibaay ilaah ku dhib dhaam nin si walbo gumac u yahay ma lagu aaday balaay gacanka kane dumar waa jilcan yihiin haa hal midaa jirto inaa xanaaqaa dhagax ku dhuftay garabkate wax kalena kuma dhufanin jugtoo ii geesta haa badanbo garabkaa aa dhufta asaa nin cadiin ahee gacanta meesha gaduudee ka noqotay haa dhibkoo ii geystay intaen madaxa juuca ii taal madaxuu iga feeri feeraha uu i xanuunaya uu iga feeri xaasid waaye qabiilkoo kasoo jeedo eelo waaye naagaha sisay u dilaan waa xaasidiin adoo og maxaa marka hore faraqa ugu gasho walaalay inuu ka fiican yahay oo ka daweec duwan yahay umaleynaya laakiin wuu kusoo baxay dhibka imtixaano family la dardaarmaanay ahayd marka hore la cabsiyo la dhaho gabadha haddaa taabato nasiibkaa la dhaho wiilkaawi muku lalno maya anin leh habartay u weyn ma qaxweynays maxaa la gabadha ma hadda nin iska celin karto ma nin si walba oo kurtun u yahay ma lagu aadan beenay siine iska celiso catoosh yaa naagta ku aado 25 sano jira 25 sano ah haa 25 jir waay ma catoosha 25 sano jiro haa cunug yar waxaa loo dhahaa muga waa kurtune anaafis la igu sire 25 sano jira walaashiis maraykanka jirto oo ayaan dhaxas maraykanka oo sacuudi joogto maraykan gashay aan soo wacdanta iimaha waxay tiri catoosho markaan kaasoo tegay 2000 iima ahayd iyo 4 ma aqaan ee ahayd markaas meeqa ani waa ku saay markaas 8 jir camal aan ahay oo dhaa mayay tiri 8 jir markaas waa ka yaraad 4 sano camal aa jirtay ee dhahday okay waxay tiri anna 20 sano maqanahay marka mid ninkas maxaa jirka laa 25 jir maaho wala gaabnaanta uu nagu siraay ninka ma yaraya marka hore xabiibti wallahi aad ugu xumaa